بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن دقيقتيال مركزوا جوكتا يسير البوادي مقلسان بكوسة نوالا برنامج كقصوي كجعيل عادوا بركتين برت يوتيوب كانوا كلين هاي بربارتا بالينتا قالوا قصوي كجعيل كبرنامج كلام قاعد وحا صوت دياري لما كان ينسو يديوني ومحمد من عبد الله لاسق dhanka farsamada hagar la'aaneed mahad qaaliya mid saraba haga dhacday waxa gacan way ka geysanayaan inta barnaamijka hawada ku jiro Cabdifitaax waa marka leeyahay barnaamijka qisooyinka jacaylka ee barta YouTube-ka ku leenahay barbaarta dhalinta سعدية محمد علي وقبر 15 جير isla markaana ku nooleed caasimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa dhigatana iskuulka Muuse Bixi oo ku yahay xaafadda New Hargeysa waxa ay dhigatay fasalka 9aad oo ah fasalka ugu dambeeya dugsiga dhexe waxay jacayl xanuun badan isla markaana suuleen ay u qaaday wiilka lagu magacaabo Sakariya Aweys Cabdi oo dhigtay fasalka koowaad ee dugsiga sare gabadhaani 15 jirka ayaa waxa ay jacayl aad u xun u qaaday wiilka Sakariya isla markaana waxay garan weysay qaabka ay ugu sheegatay jacaylka ay u qaaday Sakariya markii aan ku halacsaday soo jacaylku ima helin soo jacaylku ima helin aragtidaadii markii aan ku halacsaday soo jacaylku ima helin soo jacaylku ima helin Sacdiyo ayaa markay aragto wiilka lagu magacaabo Sakariya waxa ay dareenta farxad aad u ballaaran isla markaana farxadu waxa ay suushaa markii ay weysto muuqa uu leeyahay ama muuqaalkiisa wiilka lagu magacaabo Sakariya Aweys Cabdi halka ayaa ku cakirmay gabadha lagu magacaabo Sacdiyo balse hore loo yiri dumar aad bay u xishood badan yihiin Sacdiyo ayaa geed sokay mid saraba waxay u fuushay sida ay ugu sheegan lahayd jacaylka baaxadda weyn ay u qaaday wiilka lagu magacaabo Sakariya balse afkii baba juuqa gabay oo waxa ay awoodi karin laadahay sidii ugu sheegan lahayd jacaylkeeda warafiya shimbira wariskuma hayaan Sakariya jacayl ayaa aad loogu qabaa qofba aad u raadinaysa muuqiisa oo daawo ay u tahay markay aragto balse asigu waxa uu ka yahay warmoog oo waxba uu ka warqabo ma jiraan adduunyadu wareeriyo walwal iyo dhibaatiyo lawaya badanaaye maalin maalmaha kamid ayaa nasiib wanaag waxa xanuunsaday macalinka chemistry-ga ka dhiga iskuulka Muuse Bixi iskuul oo ku yaala xaafadda New Hargeysa isla markaana ay iskuulka ay wada dhigtaan Sacdiya iyo Sakariya waxa la soo xulay arday aad u fara badan oo kamid yahay Sakariya sidoo kalena waxa kamid ahayd Sacdiya ardaydii loo soo xulay inay soo booqato macallin Saalax oo ahaa macalinka chemistry-ga iskuulka isla markaana xanuunsanaa Sacdiyo ayaa waxa ay u haysatay maanta in ay jaanis u tahay sheegashada ay u sheegan karto wiilka lagu magacaabo Sakariya balse muxuu xaalka noqon doonaa wax la dhex joogaba iskuulka waxa la gareysay mid kamid ah basaska ka dhex shaqeeya Hargeysa isla markaana waxa la aaday gurigii ama hoygii uu deganaa macallin Saalax oo ahaa macalinka chemistry-ga oo la soo booqanayay isla markaana xanuunsanaa
kaftan iyo sheeko dheer kadib ardaydu way wada kaftamayeen sidoo kale Sakariya iyo Sacdiyana qayb bay ka ahaayeen walow Sacdiyo kaftankaasi uusan ka ahayn midka ardayda ay qabaan balse ay ku hoos wadatay arrin ayada muhiim u ahayd haday u suurta gasho wax la kaftamo la sheekaysto meesha la qosqoslo waxa la gaaray hoygii u deganaa macallin Saalax isla markaana way soo dageen ardaydii iyo Sacdiyo oo qayb ka ahayd ardayda isla markaana Jaanis ka raadinaysay waxa la soo galay qolkii uu ku jiray macallin Saalax salaan iyo kaftan iyo sheeko badan kadib waxa isla markaa bilaabatay in loo soo huleelo iskuulkii markii hore laga tagay intii la sii socday afkii baba juuqa gabay oo awood waa u yeelan weysay gabadha lagu magacaabo Sacdiya in ay si hooseed wax ugu sheegato niilka lagu magacaabo Sakariya Aweys Cabdi markii dib loo soo laabtay kadib ay nafteedii dhiirigelisay isla markaana ku tiri heede maanta ayaaba Jaanis satay hadii aad awoodi weyso doqonay xalkaaguba markii la soo dhaqaaqay kadib ayaa gabadha lagu magacaabo Sacdiya waxa ay bilowday in si qaas ah ay ugu sheekayso isla markaana ugu qoqosasho wiilka lagu magacaabo Sakariya xaalku waxa uu yahay ma fahansana Sakariya Sacdiya ayaa sheeko iyo qosol ku ridriday wiilka lagu magacaabo Sakariya isla markaana waxa ay u sheegtay in ay aad maanta ay farxad u tahay maadaama ay soo booqatay macalinkeeda xanuunsanaa balse farxadu macalinka ma ahe waa socodka uu la socdo wiilka lagu magacaabo Sakariya markii Cabbaas sheekadu socotay kadib ayaa Sacdiya waxa ay ka codsatay wiilka lagu magacaabo Sakariya in ay lambarkiisa uu siiyo si ay u sheekaystaan isla markaana ay u noqdaan dad bulsho ah maantana ay gaariga isku dhex fahmeen waa sida ay u raadinayso lambarkiisa inay uga heshay wiilka lagu magacaabo Sakariya kumuusan adkeenin waa uu siiyay lambarkii balse markii ay guriga tagtay kadib ayuu xaalkii isbedelay taas hayno joogto qaybtii koowaad ee qisadii xanuunka badneed ee la magacaabaday farxad la ilay murug badan